xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka wuxuu isna soo maray taariikh dheer waxa lagu yaqaanay dawlad kooban oo federaali ah iyo siyaasad u janjarta dhinaca muxaafidka midigta. Megan Duzer ayaa warbixintan xafiiska warqabadka ee VOA-da noogu diyaarisay waxaana soo koobaya Maxamed Colaad Xasan. xisbiga jamhuuriga waa xisbi lagu yaqaan inay doonayaan dawlad kooban oo federaal ah iyo sidoo kale siyaasadaha muxaafadka in lagu dabaqo sharciyada lagu dhaqo dadweynaha Mareykanka. hase yeeshee xaalka xisbigu weligii sidaa ma ahayn. xisbigan jamhuuriga waxaa la aasaasay sanadkii 1854 waxaana aasaasay gobolladii waqooyiga ee doonayay dawlad dhexe oo federaala oo xoogan in dalkan lagu maamulo si dawladdaasi ay uga hortagto in nidaamkii adoonsiga dadka madow uu ku fido gobollada dhaca galbeedka Mareykanka. musharaxii labaad ee madaxweyne ee uu xisbiga jamhuuriga uu abid yeesho Abraham Lincoln ayaa madaxtinimada ku guuleystay sanadka markii uu ahaa 1860 waxaana madaxweyne Lincoln uu bilaabay xoojinta ilaalinta midnimada Mareykanka iyo inuu meesha ka saaro nidaamkii adoonsiga dadka madow. markii dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay ay ku guuleysteen qolyihii reer waqooyiga ayaa xisbiga jamhuuriga waxa u suurta gashay inuu majaraha u qabto siyaasadda waddankan isagoo hayay 70kii sannadood ee dagaalka xigay. xilligaasina xisbigan jamhuuriga wuxuu hormuud u noqday in la ballaariyo awoodda dawladda federaalka. hogaamiyaashii xisbiguna waxay taageereen wax ka beddelkii dastuurka dalka lagu sameeyey gaar ahaan qodobka 15aad oo damaanad qaadayay in ragga madowga Mareykanka ay xaq u yeeshaan inay codeeyaan. xukunkaasi muddada dheer uu xisbiga jamhuuriga soo hayay ayaa isbeddel uu ku yimid markii waddanka ay ku dhufatay dhaqaale xumidii sida weyn ula degtay ee loo yaqaanay The Great Depression, taasoo ay dimuqraadiyiintu ku eedeeyeen jamhuuriyiintu in sababta burbur dhaqaale ay ahayd siyaasadihii xisbiga ee ku aadanaa bayac mushtarka. marka ayaa haddana 50kii sannadood ee xigay waxaa talada dalka la wareegay oo hayay xisbiga dimuqraadiga oo inta badan maamulayay siyaasadaha qaran. intii ay talada hayeenna waxaa madaxtinimada mar qura ku guuleystay madaxweyne jamhuuri ah. sanadkii 1933 ilaa 1945 waxaa madaxweyne ahaa Harry Truman oo dimuqraadi ahaa. sanadkii 1945 ilaa 1953 waxaa madaxweynaha noqday Eisenhower oo jamhuuri ahaa. intii u dhaxaysay 1953 ilaa iyo 1969 waxaa talada hayay xisbiga dimuqraadiga madaxweynayaashii John F. Kennedy iyo Lyndon Johnson. si haddaba awooddii sii ballaaranaysay ee dimuqraadiyiinta ee dawladdii federaalka ay u joojiyaan ayaa madaxdii xisbiga jamhuurigu waxay qaateen filsafad ku salaysan muxaafidnimo. laakiin isbeddelka siyaasadda xisbiga ayaa keenay in isbeddel weyn uu sidoo kale ku yimaado taageerayaasha xisbiga. waxaana dhinaca dimuqraadiyiinta u wareegay taageerayaal badan oo ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka oo xisbiga jamhuuriga siyaasadihii Abraham Lincoln awgood ula dhacsanaa. in badan oo ka mid ah dadkii caddaanka ahaa ee reer koonfureedka ayaa iyana u wareegay dhinaca jamhuuriga. sanadihii 1980kii ayuu madaxweyne Ronald Reagan waxa uu ku guuleystay madaxtinimada isagoo codadka ku helay taageerada ay dadka u muujiyeen siyaasadihii uu ku baratamayay oo ahaa xukuumad federaal oo aan awood badan lahayn, ilaalinta mabaadi'da muxaafidka iyo la dagaalanka shuuciyadda. hase yeeshee 10kii sannadood ee dhowaa xukunku waxa uu ahaa mid isu bedbedelayay gacmaha dimuqraadiga iyo jamhuuriga gaar ahaan jagada madaxtinimada. George Bush weynaa oo jamhuuri ahaa ayaa madaxweyne noqday intii u dhaxaysay 1989 ilaa 1993. Bill Clinton oo dimuqraadi ahaa ayaa la wareegay sanadkii 1993 wuxuuna hayay ilaa 2001. George Bush kii yaraa oo isna jamhuuri ahaa ayaa la wareegay madaxtinimada sanadkii 2001 wuxuuna hayay ilaa 2009. haddana Barack Obama oo dimuqraadi ahaana madaxweynihii ugu horreeyay oo madow ah taariikhda Mareykanka ayaa ku fariistay kursiga aqalka cad sanadkii 2009 ilaa 2017 ayuu hayay. haddana Donald Trump oo jamhuuri ah ayaa la wareegay aqalka cad 2017 kadib doorashadii 2016 uu kaga guuleystay Hillary Clinton oo dimuqraadiga u baratamaysay. inta la xusuusto taariikhda madaxweynayaashii jamhuuriyiinta George Walker Bush kii weynaa iyo Donald Trump ayaa ugu cadcaddaa siyaasadaha ay ku wajaheen dawlad federaal oo kooban iyo iyagoo siyaasadda dalkan u sii dhoweeyey dhinaca midigta fog gaar ahaan marka la eego kuwa lagu maamulo arrimaha bulshada.